بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed dibad iyo dakhil bagaara guud ahaan dibad iyo dakhil bagaar ahaan waxaan salaamayaa bahda saxaafadda waa idin salaamay intiina hadda warkayga duubayso iyo inta uu codka gaari doono bahda saxaafadda oo wanaag iyo waxyeelaba ku tariyo waxaan doonayaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago dibad iyo dakhilba diyaaradii ciidanka cirka Kenya inay muddo 3 cisho duqeynayaan gobolka Gada qayb kamid ah dhul baadiya oo dad reer miyi ah ay degan yihiin isgaarsiinta iyo anteenooyinkuna ay shirkadda Hormuud awal ka burburiyeen ciidamada cadawga ee soo duulay Kenya waan wax isgaarsiin lahayn dadkii reer miyiga ah dhulka deganaa in 3 bari la xasuuqayo la duqeynayo meelaha la duqeeyay waxa kamid ah Yaaqle Dhadhaable Harakoobo Hawafiile Jaldeyso Carmo Dulla Shaacib Burgarile Qube Abaageele iyo meelo kale aad u fara badan oo gobolka Gada ah deegaamo kala hoos tago degmooyinka Ceelwaaq Garbaharey iyo Baardheere dhulkii gowlinka la oran jiray xuduudda NFD meelo ka soo durugsan ku dhawaad 100 kilomitir meelo soo dhaafsiisan oo gudaha ay duqeynayaan kuwaasoo hadii ay tahay caadadii lagu yaqaanay 10kii bishan shanaad Bashiir Maxamed Cabdiraxmaan la yiraahdo 7 sano jir ah qoyskoodii gantaal ku dhacay meesha la yiraahdo Burgarile bareerkii xoolihii u xaraysnaa iyo ninkaasba ku dhinteen dhulka intiisa badan isgaarsiin mala duqeymaha ugu badanna habeen saddexaad iyo xalay dhaceen habeen hore way koobnaayeen dhulkuna wax anteena ka jirto anteenooyinkii dadkaas ayaguna ay ku noolaayeen oo manfacay EFC-ga u ahaa isgaarsiinta iyo maqalka u ahaana dawladda cadawga cawaanka hore u jartay Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed oo shacaba oo xoolo raacata oo inta nabad ku soo hiday markay seexdeen diyaarada duqeeyeen oo xoolihii ay ku noolaayeen oo arigi iyo geeli iyo ayagii naftoodii ba la laayay kuwa aan dhimanina naxdinta iyo dhibaatada ay qabaan waad garan kartaan dad Soomaaliyeed oo Soomaal oo Ramadaan joogo oo qorraxda markay dhacdo aan dab shidan karin oo dhuumanayo xoolahoodii iyo dadkoodii ka cararayo xoolihiina ay baylahayaan waad garan kartaan dhibaatada ay leedahay shacabka Soomaaliyeed wuxuu caan ku yahay markii ay marxalad dhacdo gurumasho isu gurumado qowl iyo ficilbo dhaqaalaha la bixiyo dadka asaga laga xumaado waxaan aad isu weydiinaynaa shucuubta Soomaaliyeed ee degan gobolada xorta ah iyo kuwa dibadda jiro oo qurba joogta ah waxa aad u yar danqashada dadkaas iyo ciidaas la dhacay iyo dadka la barakicinayo waxa weydiisanayaa dadka dibad iyo gudaba dadka go'doonka oo masaakiinta Soomaaliyeed oo shacabka ah oo isgaarsiintii maqalka u ahayd horey looga jaray 13 goobood oo shirkadda Hormuud ay lahayd oo dad ganacsato Soomaaliyeed ay leeyihiin baa horey looga burburiyo dhulkaas mala wax anteena kama jiraan dadkaas wixii uu ku noolaayo xoolaha ah oo dhaqanayeen oo kuwa hadda la leynayo oo waxa weeye diyaaradaha cadawga ay duqeynayaan annaga ka ahaan ragga iyaga qabaanada calanka iyo ciidda u geysa go'aan baa meel loo yaalo waxa tu faraxdaan oo badan baad maqli doontaan oo waxaan xanuunjin doonaa annagoo walaalaha NFD nafiyo maalba dhowrayno adoonta NFD guumaysanaysa nuguna soo duushay ciidamadeeda gudaha joogana insha Allah meesha ay joogan xabaalay u noqon doonaan kuwa dalka NFD guumaysta iyo meel kasta oo aan ka gaarnana dadka iyaga xanuunka u geysteen mid lamida inaan gaarsino waa go'aan dhaba aan doonayaa marka shacabka Soomaaliyeed inuu indhihiisa u soo furo dhibaatada gaaraysa dadka shacabka oo dunyadii ay dhaqanayeen la leynayo ayagina la barakicinayo in la dhinto dadku waa u dhasha laakiin dhul dad aan lahayn sharaf male dhulkii baa la dhacaya ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay indheeda dhinacaas u soo joodiso waa qodobka labaad aan doonayaa inaan ka hadlaa waxay tahay maalmahan General Abdullah Sheikh Ismaaciil Fartaag nin la yiraahdo dadku aad uga hadlayeen waxa la yiraahdaa galadaha Ilaahay iyo nimcada garamar jaajuus wuxuu galabsanayaa wax daran guul dareystuhu garaadaha la siin waxa agtaal geeri foolxume kuwa ganacsanaya arlada iyo u garnaqi doono Abdullah Sheikh Ismaaciil wuxuu ahaa ninkii dhulkaas awal Kenya iyo Tigray gacanta u galiyay asaga oo xasaanadii generaalnimo ee qaranku u siiyay iyo midii wiilnimaba huwan ninkii jaajuuska noqday dadka baabiyay buu ahaa
waxaan ka digayaa dawladda Soomaaliyeed waxaan nin hooyo dhashay hal ma seegi weydo hadda ka hor indha koreeyo dambiilaha baa fakaday dhibaatada uu noo geystay waad ogtiin Mandheera NFD buu ciidamo ku urursanaya habeen walba balad xaago ka soo duqeynayay waad ogtiin waxaan ka digayaa Fartaag iyo kooxo kale oo canaasiir ah la rabaa in laga tahriibiyo xeebtan Indian Ocean ee gobolkan Banaadir loo dhoofinaya gobolka Jubbada Hoose oo la doonaya in ayaguna xamaalintii cadawga mar labaad in dhinaca sadana dagaal laga soo shido oo dhinaca Doobley iyo laga soo wareejiyo gobolka Jubbada Hoose mar haday kaaya ciidan ahaan gobolka Gado uga quusatay inay hadda Jubbada Hoose iyo NFD qaybo ka mid ah gaar ahaan degmada Gaarisa gobolka Gaarisa duulaan ka soo samayso waxaan leeyahay marka dawladda Soomaaliyeed maalin walba weer birqabley jiidanayo oo dadka iyo dalka dambi ka galay haddana gacmihiina ku jiro intuu soo fakado inuu dadka shacabka ah waxyeeleysa ka qayb qaato waa idinkaga digayaa waxay la tafaasiil kala ma leh Fartaag waa Fartaag waxaan cadaynayaa Fartaag inuu san ahayn sanatar mesela dadkaas iyo mujtamaca dhulkaas degan goboladaas la yiraahdo Jubba ee wabiga uu maro oo NFD xuduud la leh waxaan cadaynayaa saraakiisha Tigreega ee dadka nagana leenaysay dalka nagana dhacaysay inay xilka u dhiibteen waxaan ku marqaati gashanayaa dhaqan wala siyaasad ee mujtamaca Soomaaliyeed halka deganaa waxaan cambaaraynayaa dusha uga tuuraya dhaleeco asaga iyo kuwa la midka ah askarta kaayaanka madiidinka waa Fartaag wuxuu ka yahay dhowr iyo 9 nin oo ay sheegtay dawladda Kenya inay ayagu gacantooda ku qoreen ay wakiilo uga yihiin kuwa gobolka ka soo joodana intooda badan dad la isma wada raaciyo waa suurtagal shakhsi 2-3 qof oo masaakiin ah oo gobolada ka soo joodo oo aan waxba kala ogeyn inay jiraan laakiin intooda badan waa intelligence-ga Kenya weeyo inay intelligence-ga Kenya yihiinna waxaan daliil idinkugu ah 10 sano dadka la duqeynaya 4 sano ay hadda xilka hayeen iyo 4tii ka horeysay 3 madaxweyne Xasan Sheekh Shariif iyo hadeer dadka la duqeynaya hal xil dhibaan oo ka hadlay ma jiro hubka culus waxa lagu ridayo calaamadan la iskama cirtaaliya sidii caama gaara ah bancawaan sarxaansanay kilkilay waa uqiyo hooga cardaadiiqda meequ ka dhigay reer cawaysimayo dad masaakiin oo Soomaaliyeed oo seexday oo nabadgelyo u seexday oo la laynayo oo xooli uu ku noolaa la laynayo oo dhirti xoolaha u daaqayeen la jarayo nimanka u sheeganayo xil dhibaana inay u yihiin oo madiidinka ogaa cadawga waxaan leeyahay billaah calaykum wax la qaadan doona ma aha kuwa gacmahooda dambiga ku galay sida Janaal Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil cadaalad baan in la keenan rajaynaynaa oo aan soo eedayno kuwa caloosha ka taageersan oo sawaaxiliga ayaga taageeraha u ana waxaan leeyahay Ilaahay caradiisa ku dhacdo waxaan doonayaa marka shacabka Soomaaliyeed inaan ugu baaqo Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil warkiisa waxa ku jiray beesha beel heblo gadale iyo beesha beel heblo Jubbada Hoose leh waxaan cadaynayaa beel inaynan lahayn ee dhulku dhul Soomaaliyeed u yahay dadka Soomaaliyeed oo halka aaba leh oo halka calanoo baluuga alaha dhulka xoreystay oo u wada dhintay Jubbada Hoose Jubbada Dhexe iyo Gado iyo guud ahaan Soomaaliya inta xorta ah reer male qoys male kuwa ilma adeerho islaaysiyo cadawga adeegayaal ugu amale Soomaaliyeey waxaan idin weydiisanayaa si Soomaalinimo ah dadka barakacayo diyaaraduhu duqeynayaan in af iyo adinba loogu soo joosto dambiilayaashana nalala soo wada eedeeyo nalala qabto meelaha ay ka dhoofayaan iyo doonaha la saarayo laga digtoonaado Kenyana Jubbada Hoose waa ka saari doonaa insha Allah gadana waa ka saarnay waa idin salaamaya qoladiina saxaafadda 114 waxa idin furan wixii su'aalaada oo gabadh falladaas adiga weydiin lahaydeen